shirkan oo socod doona muddo 2 maalin ah ayaa waxaa looga hadli doonaa ka hortagga arrimaha burcadbadeedda waxaana ka soo qabanqaabiyay wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda ee Galmudug oo kaashanaysa hay'adda FAO wasiirka wasaaradda dekedaha Galmudug duqa degmada Hobyo agaasimaha guud ee wasaaradda kalluumaysiga Galmudug iyo mas'uuliyiin kale ayaa goobjoog ka ahaa furitaanka shirkan waxaana ka qayb qaadanayay qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka ah agaasimaha guud ee wasaaradda kalluumaysiga Galmudug Cabdirashiid Maxamed Cabdi ayaa faahfaahin ka bixiyay muhiimadda uu leeyahay shirka wasaaradda kalluumaysiga Galmudug ay ka furtay magaalo xeebeedka Hobyo ee gobolka Mudug meeshan ku daafurno barnaamijkan oo shirkan wada tashiga ah oo socod doona ilaa muddo 2 maalmood ah shirkan loogu tashanayo maadaama meeshan ay ahayd meel muddo dheer runtii ay saameyn ku lahayd burcadbadeedda marka laga hadlayo oo ay keeneen waxyaabo badan marka si looga tashtamicnaa problemadaas oo kale Maxamed Abshir oo ah wakiilka hay'adda FAO ee dhanka kalluumaysiga Galmudug ayaa shacabka reer Hobyo ku booriyay ka tashiga arrimaha la xiriira kalluumaysiga isku tashi bay wax ku gaartaa ina wada tashatiin inuu maaragtay ina la inii tarin ee idinku aad tashatiin oo maaragtay qaabkii ahday jiro iska qaban lahaydeen haddii horumar laga hadlayo aad maaragtay idinku horumarkiina ka tashan lahaydeen intii kor la idinkaga soo tarin lahaa wasiirka wasaaradda dekedaha Galmudug Maxamed Aadan Qalabxoor oo soo xiray wajiga koobaad ee shirka ayaa shacabka kula dardaarmay in ay uga faa'iideystaan shirkan soo gudbinta dhibaatooyinka haysta kalluumaysatada reer Galmudug burcad ugu weyn runtii burcad kalluumeed baan u aqaanaa badda ay ku jiraan oo xaalufinayaan maanta hadii burcad laga wacyi gelinayo deegaankan wuxuu ahaa runtii caqabada ugu weyn oo maanta deegaankan haysata burcad kalluumeedka waxa weeye badeena xaalufinayo ku jira laakiin maadaama meeshaan raadad badan ay ku jireen ayaa sababta dabcan wasaaraddu ay halkaas u target gareysay ama ay halkaas u aaday taasa qayb ka ah qaar ka mid ah shacabka ka qayb qaadanaya shirkan oo u badnaa kalluumaysato ayaa ka sheekeeyay dhibaatada xilligan haysata kalluun marka waxa waaye in lagu mashquulo maaha seminar la qabto iyo waxaan u jeedaa FAO iyo wasaaradda kalluumaysiga anaga ciidan marinaysan leena ayaga qalabeeya maal galiya hubsiya mashaar u qora anaga badeena difaacanayna anaga burca anagu horta kalluumaysataan badana ka shaqeyna anagu reelabteed baana nin qalabkiisa wixiisa la xasuuqayana ya ciid baa kaleeyahay hadhowdana kurmidinu kala suurooda wacyi kale horta waa nooga baahanaa wacyi kalena Cabdi Xasan oo warbaahinta qaranka Soomaaliyeed Hobyo